halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 2 duhurnimo oo gaw ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo Salaaso ah 14 bisha afraad ee sanadka 2020. idaacadda duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdulaahi. qodobada idaacadda iyada ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maamulka Jubbaland oo sheegay in dad badan oo cudurka COVID-19 looga shakiyay ay ku hayaan magaalooyin ka mid ah Somaliland oo sheegtay inay hirgelinayso amarka ay masaajidda ku xirayso xilli cabasho ay muujiyeen culimada qaar. galmudugna waxay go'aamisay in hadda aanay xiri doonin masaajidda si ay uga hortagto faafidda COVID-19. halkii aan masaajidda in la xiro aan ka dhigi lahaynay number 1 waxaan ku bedelnay in hadda ka muhiimsan tahay inaan ka horeyso inaan tilaabooyinkaas qaadno ilaa aan aragna xaalad kale oo xaaladaas ka khatar badan. qodobadaas iyo wararkii ciyaaraha ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan duhurnimo oo ay wadajir u soo saareen Maxamed Cabdiraxmaan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdinaasir Saxan Saxo. mahadsanid Kawthar. Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa waqti dheeraad ah ku kordhiyay xilliga bandowga kaas oo sii socon doona ilaa 3 bisha May. waxa kale oo uu sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha muhiimka ah ee xagga baayaca mushtarka in la fasaxi doono 7 kadib markii dib u eegis lagu sameeyay amarkii bandowga. 3 toddobaad oo bandow habeen iyo maalin ah ayaa looga dhawaaqay dalkaasi bishii hore oo ay ku nool yihiin wax ka badan 1 bilyan oo qof, taas oo horseeday in milyuumaad qof oo nolol maalmeedka ku tiirsanaa ay dhibaatooyin la kulmaan. dalka Talyaanigana waxaa la furay dukaamo iyo ganacsiyo kooban kadib bandow 5 toddobaad oo si xiriir u socday. inkasta oo la dhigay shuruuc adag oo dhanka fayadhowrka ah iyo tirada dadka macaamiisha wax iibsanaya oo yar, ayaa haddana saraakiisha dowladda ee meelaha qaar ay walaac ka muujiyeen in bandowga la dabciyey lagu degdegay. xayiraadaha ayaa sidoo kale la qafiifiyey dalka Australia, halkaasi oo ay dowladdu sheegtay in la xakameeyey faafitaanka cudurka corona. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in si dhow uu indhaha ugu hayo dab ka holaaqaya keymo dalkaasi ku yaala, dabkaasi oo ku sii siqaya xarun horey loogu naaxin jiray hubka nuclearka. boqolaal shaqaalaha dabdamiska ayaa la kaca ku faya muddo 7 ka badan sidii ay u baqtiin lahaayeen dabkani. mas-uuliyiinta dowladda dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalo kuwa rudada dhexe ah, kuwaasi oo lagu ganay dhanka gacanka badeed ee xeebaha galbeed. waa tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee military ee ay waqooyiga ku dhaqaaqdo. ugu dambeyntiina kumanaan kun oo muwaadiniin u dhashay dalka Pakistan oo ka xoogsanaya dalalka gacanka Carabta ayaa baaq u diray dowladooda si ay dib ugu celiso dalkooda kadib markii ay shaqo la'aan ku dhacday sababo la xiriira bushiga corona. mas-uuliyiin dowladda u hadlay waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10,000 oo qof oo dadkani ka mid ah ay shaqooyinkoodii lumiyeen maalmihii la soo dhaafay. warkiina waa naga intaas. aad buu u mahadsan yahay Cabdinaasir Saxan Saxo oo inala socodsiinayay warkii dunida. halkaad ka dhageysanaysaanna waa BBC. waa hagaag duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. aynu ku bilaabnay maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in 10 qof oo looga shakisan yahay fayraska corona lagu arkay magaalooyin ay ka mid yihiin Kismaayo, Doobley, Ceelwaaq iyo Beled Xaawo, iyadoo 2 kiis ee ugu horeeyay ee cudurkaasi laga helay 2 qof oo ku nool magaalada Kismaayo. maamulka ayaa wada dadaalo lagu hirgelinayo xarumo karantiil iyo kuwa daweyn si loola tacaalo faafitaanka cudurka COVID-19. wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish
oo sidoo kale madax ka ah guddiga ka hortaga cudurka ayaa b b c da u sheegay in kiisaska Kismaayo laga helay lagu baaray shaybaarka qaranka ee ku yaala Muqdisho. wasiir Darwiish waxa uu u waramay wariyaha b b c da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. muddo intii waxaa jiray dad suspected marka qalab la'aan baa jirtay. qalabka markuu soo gaaray waa la baaray. wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland waxay noo xaqiijisay 2 kiis oo positive iyagina hadda waxaa lagu la tacaalayaa isbitaalka iyo goobta loogu talagalay. waxaa jira marka dad fara badan oo kale oo suspects hadda laga qabo matalan oo magaalooyin badan leh. hadda magaaladan Kismaayo 2 laga helay 32 suspect weeye. Dhobley 21 ayaa suspects hal keesna baaris buu ku maqan yahay oo Amazon iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka ayaa ka shaqeynaya. WHO iyagoo la kaashanaya Elwaq 4 suspect. Beled Xaawo waxaan maqlaynaa 14. tirada dadka laga shakiyay ee 2 kiis ay ka soo baxeen ee la baaray imisay ahayd 32 kiis oo magaalada Kismaayo gudaheeda waa suspects qalabka aad ku baarteen xageed kaga yimid ee aadan markii hore haysan anaga WHO ayaa waxay noo keentay 30 kit bayna siinaynaaba tiri laakiin waxa noo yimid Kismaayo 9 kit 15na waxay geeyeen dollars. marka isla markiiba waa la qaaday iyaga qaaday magaalada madaxda Muqdisho loo qaaday dabadeedna jawaabta iyaga xalan ugu soo celiyay. sidaas aanu ku helay. waana garanaysaa 9 kit oo mid walba markii qofka looga qaado wax isla markiiba la tuurayo iyo dadka suspectiga inta farqiga u dhaxaysa. marka waxa lagu soo baaray shaybaarka qaranka ee Muqdisho ku yaala wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka arrintan ma kala hadasheen oo ma iswadaarsateen macluumaadka arrintan la xiriira wasaaradda iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedku waa wada xiriiraan waana isweydiistaan way iswadaarsadaan xogaha annaguna de official ayaanu u ilaaminay. WHO-na 2 meeloodba waa ka shaqaynaysaa. kiisaska magaalooyinka kale ee laga shakisan yahay iyaga maxaa laga yeelayaa meelaha qaarkood aad bay u fog yihiin wallahi waxa laga yeelaya de waxa weeye dhammaan anagu caalamka iyo dowladda Soomaaliya intaba mucaawinaan weydiisanay sidii loo gaari lahaa iyo sidii looga shaqayn lahaa. maxaa yeelay awoodeedii baa iska yar. arrinta ku saabsan magaalada gudaheeda Kismaayo ee xarumaha aad diyaariseen ee la tacaalidda ama karantiilka iyaga maxaad nooga sheegi kartaa anagu waxaanu diyaarinay hadda 3 meelood baan priority koobaad waxaanu samaynay meel xarun oo ku taala magaalada. meesha labaadna waxaanu meel magaalada xoogaa yar ka baxsan. midda kaleetana hadda ayaa guddigu ku maqan yahay oo ay soo saamin doonaan meel college oo awal aan waxbarasho ugu talagalnay inaanu kasii faa'iidaysano. marka tiimkii dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo task force-kii kulli waa israaceen wayna soo xaqiijinayaan. hadday soo approve gareeyaanna goobta 3aad bay noqon doontaa. wasiir 2 qof ee hadda xanuunka laga helay waxaad ku haysaan isbitaalka weyn ee magaalada marka taasi soo dhibaato kale ma aha in dadkii isbitaalka dawooyinka iyo waxyaabaha kale u soo doonanayay ee arrintani saamayso adeer isbitaalka laguma haya meel gaar ah oo guriga lagu hayaa gacantana waxa ku haya dhakhaatiir baa ku haya dabadeedna mar dhow waxaan ugu wareejin doonaa goobaha aan ayinay. wasiir waxaan wararka ku haynaa in magaaladu sideedii caadiga ahaa u furan tahay marka taasi sow ma keeni karto in cudurku uu sii faafo bandow waanu ku soo rognay dhaqaaqa waa joojinay wax soo gala iyo wax baxana waanu ka joojinay. marka hawsha si fiican bay hadda u socotaa. ciidamada amnigana waan dhaqaajinay. wacyigelintiina waa ku dhinac wadnaa. culummadii intellectualkii ururadii bulshada hadda guddi walba guddi baa la fadhiya. wacyigelintana waa ku daraynaa. meediahana waa ka gudbinaynaa. ficilna waa ku daraynaa. bandowgaas haddaad noo fasirto waa noocee adeer in habeenkii 7 ilaa iyo salaada subaxiga inaan waxba dhaqdhaqaaqa jirin. hoteelada inaan la isugu imaanin. shirar inaan la qaban. bandowgaas sidaas weeye macnaheedu. aroos iyo damdam inaan la qaban. bulshada distance in la kala siiyo. meelaha ay ku kulmayaanna in la xadado. wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayay wariyaha b b c da ee magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. markana Somaliland jamhuuriyadda iskaga ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland ayaa sheegtay inuu hirgelayo go'aanka ay ku xayrayso masaajidda kadib markii ay soo baxeen culimo ka biyo diidan arrinkaasi. wasiirka warfaafinta ee Somaliland Saleebaan Cali Koore ayaa b b c da u sheegay in go'aankaasi ay kala tashadeen culimada qayb ka mid isla markaana ay ujeedadu tahay in shacabka laga badbaadiyo cudurka COVID-19 ee sida aadka u faafa. wasiirka ayaa sidoo kale ka waramay amar ku aadan inay Somaliland ka baxaan ajaanibta sharci darrada ku jooga. waxa uu u waramay wariye Cabdullaahi Jaamac.
masaajidada waxaanu la tashanay dadkii aqoonta iyo cayaanta diinta jamhuuriyadda Soomaaliland ah oo aanu mar iyo laba iyo saddex ba la tashanay waxaanu isla garanay inay qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland maadaama laga baqayo faafitaanka cudurkan inuu gurigiisa ku tukado annaguna tiibaanu niri muwaadiniinta waxaanu faray inay guryahooda ku tukadaan waana arrin hore uga dhacday dalalka islaamka iyo diinta islaamkuna ansixinayso culimada waxaan leeyahay isku mid baynu nahay isku dal baynu nahay isku deegaan baynu nahay masaajidka waa ku wada tukanaa waxaa dadkii aqoonta u lahaa xanuunada waxay sheegeen in ay loogu tuhum badan yahay inay tahay meelaha la isugu sidaa daraaddeed annagu ujeeddadayadu masaajida xidhis maahee waa badbaadada dadka iyo ummadda reer Soomaaliland ee islaamka ah waxay qaar ku doodayeen saacadda wasiir waxa isku soo beegmay bishii barakaysanada Ramadaan oo aad loo cibaadaysan jiray la ducayn jiray la soo iman jiray iyo masaajidada la xirayo inkastoo meelo badan oo xaramka ku jira way xiran yihiin horta waad ogtihiin bisha Ramadaanna inay bil la filayay oo Ilaahay jideeyay oo sharci ah ay tahay xanuunkanna Ilaah baa keenay wax xukuumaddu ay shaqo ku leedahay ma marka masaajidada islaamkooda laga hadlayo xanuunkan baa laga hadlaya salaadii iyo waajibaadkii bisha Ramadaanba sideeda u jiray qof kasta oo Ilaahay uu amaawiirta ku bixiyay culimada diyaar waxaanu nahay inaynu ka wada tashanno wixii madmadow soo galo laakiin inayna noqon ummad iska hortimaada si aynu xanuunkan ugu midowno waxaanu rabnaa inaynu wadaado iyo dadka aqoonta leh iyo dawladda iyo xukuumadda iyo cayaanta bulshada reer Soomaaliland inaynu ka midowno fikirkiisa qodobada soo saartay waxa ku jirtay in ay dalka ka baxaan dadka aan sharciga haysan tirokoob ma haysan dadka aan sharciga haysan ee wadanka ka baxaya isla markaana miyaanay dhici karin dadka hadda dhaqaaqaajistaan in isaga laftigiisa xanuun faafidii ay halkaas ka soo baxaan dalalka adduunka oo dhan baa isticmaalay waa kelmad uniform oo Ethiopia Djibouti dhammaan la wada isticmaalay dadka aan dalka u dhalan ee aan sifaha sharciga ah ee ay ku joogan lahayn inay ka baxaan haddana xukuumaddu go'aankaas ay qaadatay waxaana ku celinayaa waa inay ka baxaan waqtigaasi waa 5 cisho diyaaradana ma jiraan xuduuduna way xiran yihiin markaas oo bixi karaan dadka aanu leenahay ka baxa intooda badan dad diyaarada ku yimid ba waa dad dhulka ku yimid iyagana amarka way qabaan dalkooda haday aadayaan annaguba qof Soomaaliland oo dalka soo galay ma diidi karo marka cid dalkiisa loo diidi karaa ma jirto dadkii shalay ay sheegteen in laga helay xanuunka coronavirus ma gudaha wadanka ay joogeen mise wadada dibadda ka yimid oo marka dibadda kale ma xanuunka ilaa iyo hadda saddexda qof baa la tilmaamay anigu ka wasiir ahaan sidaad ogtahay technical may wasaaradda caafimaadka may wasaarad baa shaqada leh iyada haysay iyada waday goobtay ku haysay waxay noo sheegtay dadkii 20 ka ahaa la diray ee shakiga laga qabay in saddex ka mid anigu ma oran hebel ma wuxuu ka yimid meel hebla mise meel heblu ka yimid laakiin inta aan ku xaqiijin karaa waa saddex qof oo muwaadiniin reer Soomaaliland wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleebaan Cali Koore ayuu kaasi ahaa wariye Cabdullaahi Jaamac ayuu u waramayay isla wararka masaajidda iyo corona ayaan ku guda jirnaaye wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Galmudug ayaa sheegtay inay go'aamisay in xilligan aan la joogin waqtigii ay xayiri lahaayeen masaajidda iyo dugsiyada quraanka ee deegaanadooda si looga hortago cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ku sii faafaya wasiirka wasaaraddaasi Cabshakuur Macallim Ciise Albadri ayaa sheegay inay shacabka deegaanadaasi ku boorinayaan inay alle baryaan si uu uga badbaadiyo cudurkan arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dalalka islaamka qaarkood ay albaabada u laabeen masaajidda wasiirka ayaa u waramay Faarax Lamaane Galmudug ahaan waxaan ku soo jirnay iyo markii cudurkaani uu soo gaaray dalka Soomaaliya la tashiyo fara badan oo la sameeynay bahaba caafimaadka oo kale qaybaha kala duwan ee bulshada si gooniya culimada diinta macallimiinta oo runtii anaga si gaar ah noo quseeya ka wasaarad ahaan tarooyinkii markaan aruurinay waxaa marka ay u bateen in aan hadeer qodobo muhiim aan u aragnay inay yihiin aan qaadno oo ah dadka in la wacyigeliyo in nadaafadii aad yani dadka lagu booriyo in quraan akhris wadar ah iyo kali intaba dadka aan soo jeedino dhahno ilaahay lagu bariyo maadaama quraanka uu yahay isagu bogsasha ah oo lagu caafimaadayo fiihi shifaa lilnaas ilaahay uu leeyahay
waxaan kaleetoon iyadana boorinay adkaarta maaragtay muslimiinta nabigu uga tagay calayhi salaatu wasalaam in iyadana la akhristo oo aad yacni loo laasimo halkii aan masaajida in la xiro aan ka dhigi lahaynay number one waxaan ku bedelnay in hadda ka muhiimsan tahay ayna ka horeyso inaan tilaabooyinkaas qaadno ilaa aan aragna xaalad kale oo xaaladaas ka khatar badan arrinta laakiin ugu muhiimsan waxay tahay masaajidda marka dhinacooda laga hadlayo waa meel ka mid a meelaha ay dadku ku kulmaan ama isugu yimaadaan cudurkanna waxa uu ku faafaa ayaa laleeyahay meelahaas oo kale oo dadku ay ku kulmaan ma aha qasdiga in laga soo horjeedo diinta iyo cibaadada iyo masaajidadii inay furnaadaan taas marka maadaama hadda adduunyadii masaajiddii ugu waaweynayd ay xidhan yihiin oo maanta aan xaramkii lagu tukanayn cudurkan daraaddiis maxaad adinku ugu dhiirigelinaysaan dadkii masaajidda inay yimaadaan waxaan ugu dhiirigelinaynaa walaalle waa laba arrimood in marka ugu horeysa oo maaragtay dhibaata ay dhacdo dadku ay u cararaan xagga xuska ilaahay iyo marka labaad oo ah bishii barakaysneed ee ramadaan oo cibaadada in la ogaaho ay aadka u fadliga badneed ay soo dhowdahay waxaan hadda u aragnay in aysan umanayn xilligan in masaajida iyo dugsiyada qur-aanka iyo hal xero aan dhahno laakiin nadaafada masaajida nadaafada maaragtay dugsiyada qur-aanka haddii ay tahay maaragtay wax walba oo dadaala in la sameeyo ayaan bedelkeedii qaadanay marka hadeerna anagu ma joogno xaalad maaragtay aada u adag bifadlillah marka haddii ay soo kororto un dareeno hadba xaaladan aan isleenahay way kasii nugushahana talay u laabanayaan maamulka iyo bulshadu intaba waraysiga markaan bilaabayna waxaa ii sheegtay dhakhaatiir inaad is aragteen taladay idin siiyeen waa maxay bahda caafimaadka qudoodu waxay saadooyinka ay jeedinayeen waxaa ka mid ahayd in aada yacni nadaafada maaragtay loogu dadaalo in macalimiintu ay sameeyaan goobo u gooliya oo faradhaqa oo ardada gacmaha looga dhaqo oo maaragtay sidoo kale in masaajida iyadana sidaas oo kale laga sameeyo talooyinkaas ay nasiinayeen wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee galmudug cabdishakuur macalin ciise albadri ayuu kaasi ahaa oo faarax lamaane u waramayay halkani waa b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa hagaag tuulo buur dusheed ku taal oo ka tirsan dalka Talyaaniga ayaa toddobaadkii hore waxaa laga helay tobanaan qof oo qaba fayraska corona taasoo dhalisay in militariga uu go'doomiyo khubarada caafimaadka ayaa rajaynaya inay tuuladaasi ka baran doonaan waxyaabo badan oo ku saabsan cudurkan caalamka faraha baan ku haya cabdiraxmaan xaaji cadow ayaa faahfaahinta inoo haya waa tuulo yar oo ku taala dalka Talyaaniga oo dunida inteeda kale oo dhan laga go'doomiyey waa tuulada Nerola ee ku taala dusha sare ee buuraha ku yaala meel ka baxsan caasimadda Roma wax waliba waxay tuuladan uga dhaceen si degdeg ah markii ugu horeysay cudurka maanan moodin coronavirus ciidamo ayaa yimid waxayna sheegeen inay cidna geli karin cidna ka soo bixi karin gebi ahaanba waxay tuuladan ka go'doonsan tahay dalka Talyaaniga intiisa kale toddobaadkii la soo dhaafay 77 qof oo cudurka coronavirus qabta ayaa laga helay tuuladaas yar waxaana lagaga dhawaaqay xaalad degdeg ah waana la go'doomiyey waatan maayarka tuuladaasi oo ka waramaysa waxaan karantiilnay 1900 oo qof sideed u aragtaa arrintan aad ayay u badan tahay aad ayaan u jahwareernay dadka telefoonkayga ayay iga soo wacayaan oo waxay leeyihiin miyaan xanuunsanaynaa maxaa dhacaya waxaan ku idhaahdaa maya wax dhib ah ma jiro xaaladdu waa caadi si aan idiin badbaadinno ayaan arrimahan oo dhan u samaynaynaa naftannada idin huraynaa shacabka tuuladan ku nool looma oggola inay u baxaan si ay u iibsadaan cunno ama dawo wixii ay u baahdaan halka ay joogaan ayaa looga geeyaa marko xaaladaada ka waran see tahay aniga iyo qoyskayga waan fiicannahay laakiin dadka halkan ku nool aad ay u cabsanayaan cabsi aad u badan sababtoo ah dadka ugu badan ee halkan ku nool waa dad da' ah
maxaa looga baahday in tuuladan oo dhan karantiin la geliyo? waxaan su-aashaasi weydiiyey mid ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka. waxaa keenay dadka uu cudur ka haleelay marka loo fiiriyo dadka tuuladan ku nool waa tiro aad u badan. hadda tuulada waxay isu beddeshay goob lagu sameeyo shaybaarka cudurka koronafirus. qof kasta oo tuuladaasi ku nool baaritaan ayaa lagu sameeyey. taniyo inta uu baaritaanka bilowday waxaa la baadhay 1800 oo qof oo ku nool tuulada Nerola. waxaan doonayaa dhammaan shacabka halkan ku nool inay baaritaan sameeyaan. waxaan wax walba u huraynaa bulshada caafimaadkeeda. codkaasina waxaa u dambeeyey warbixintii cabdiraxmaan xaaji cadow. markana baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC da magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiir Cabdulaahi Jaamac. Samiir, mahadsanid Caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Qadar Maxamuud oo jooga Gaalkacyo. waxa uu baafinayaa Samsam Maxamuud Barre. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka sanadii 2009. haddaba haddii ayna maqlaysa Samsam Maxamuud Barre ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Qadar Maxamuud Barre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Yaasmiin Cabdulaahi Khaliif oo joogta Gaalkacyo waxay baafinaysaa Cabdulaahi Khaliif waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2012. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdulaahi Khaliif ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Yaasmiin Cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. aadan xaashi wabar oo jooga Gaalkacyo waxa uu baafinayaa Axmed aadan xaashi. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Sacuudiga sanadii 2014. haddaba haddii uuna maqlayo Axmed aadan xaashi ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo aadan xaashi wabar iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Yaasmiin Cabdulaahi Khaliif oo joogto Gaalkacyo waxay baafinaysaa Cabdifataax Khaliif. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen 2014. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdifataax Khaliif ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Yaasmiin Cabdulaahi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Qadar Maxamuud Barre oo jooga Gaalkacyo waxa uu mar kale baafinayaa Yaasmiin Maxamuud Barre. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mareykanka 2009. haddaba haddii ayna maqlaysa Yaasmiin Maxamuud Barre ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Qadar Maxamuud Barre iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. hodan mahad yaasiin oo joogta Gaalkacyo waxay baafinaysaa Xamdi mahad yaasiin. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2009. haddaba haddii ayna maqlayso Xamdi mahad ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo hodan mahad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Cabdulaahi Maxamed Khalaf oo jooga Gaalkacyo waxa uu baafinayaa Cabdulqaadir Maxamuud Khalaf. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Bakistaan sanadii 2011. haddaba haddii uuna maqlayo Cabdulqaadir Maxamuud Khalaf ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Cabdulaahi Maxamuud Khalaf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Muna Cumar Cusmaan oo joogta Gaalkacyo waxay baafinaysaa Xaawo Yuusuf Faarax. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2010. haddaba haddii ayna maqlayso Xaawo Yuusuf Faarax ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Muna Cumar Cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Shamis Sheekh Sade oo joogta Gaalkacyo waxay baafinaysaa Xaawo Barre Warsame. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen sanadii 2007. haddaba haddii ayna maqlayso Xaawo Barre Warsame ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Shamis Sheekh Sade iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Xirsi Xuseen Dugaal oo jooga Gaalkacyo waxa uu baafinayaa Hiraad Xirsi Xuseen Dugaal. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2005. haddaba haddii uuna maqlayo Hiraad ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Xirsi Xuseen iyadoo wixii war ah loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Gaalkacyo. Khadiija Xaamid Buurow oo joogta Qardho waxay baafinaysaa Yuusuf Xaamid Buurow. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Yemen sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo Yuusuf Xaamid Buurow ama bay jirto cid garanaysa, fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo Khadiija Xaamid Buurow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Qardho. Amran Cali Xasan oo joogta Marko waxay baafinaysaa Xasan Cali Xasan. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mareykanka 1994. haddaba haddii uuna maqlayo Xasan
xasan cali xasan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo amran cali xasan ayadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay marko. zamzam maxamed culow oo joogta qardho waxay baafinaysaa bilkhayr maxamed culow waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan etoobiya sanadii 2010 haddaba haddii aana maqlaysa bilkhayr maxamed culow amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo zamzam maxamed culow iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. nayruus maxamed oo joogta wisil waxay baafinaysaa siciid maxamed waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2003 haddaba haddii uuna maqlaya siciid maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo nayruus maxamed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. khadiijo axmed nuur oo joogta gaalkacyo waxay baafinaysaa caasho sheekh cabdulaahi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2013 haddaba haddii ayna maqlaysa caasho sheekh cabdulaahi amabay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo khadiijo axmed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. cabdulaahi maxamed maxamuud oo jooga qardho waxa uu baafinayaa muuse maxamed maxamuud waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2007 haddaba haddii uuna maqlaya muuse maxamed maxamuud amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdulaahi maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. khadiijo axmed nuur oo joogta gaalkacyo waxa ay mar kale baafinaysaa maryan sheekh cabdulaahi xuseen waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani kenya sanadii 2012 haddaba haddii aana maqlaysa maryan sheekh cabdulaahi xuseen amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo khadiijo axmed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. cabdulaahi maxamed maxamuud oo jooga qardho waxa uu baafinayaa cumar maxamed maxamuud waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan yeman 2011 haddaba haddii uuna maqlayo cumar maxamed maxamuud amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cabdulaahi maxamed maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. faadumo cabdulaahi salaad oo joogta gaalkacyo waxay baafinaysaa jaamac xasan sahal waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan libiya sanadii 2014 haddaba haddii uuna maqlayo jaamac xasan sahal amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faadumo cabdulaahi salaad iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. cabdulaahi maxamed nuur oo jooga qardho waxa uu baafinayaa sucaad maxamed nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan talyaaniga 2009 haddaba haddii ayna maqlayso sucaad maxamed amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiya cabdulaahi maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. safiye jaamac wardheere oo joogta gaalkacyo waxay baafinaysaa cabdulaahi jaamac wardheere waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan ingiriiska sanadii 2005 haddaba haddii uuna maqlaya cabdulaahi jaamac wardheere amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo safiye jaamac wardheere iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. nadiiro macow maye oo joogta qardho waxay baafinaysaa abuukar macow maye waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan suudaan 2007 haddaba haddii uuna maqlayo abuukar macow maye amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo nadiiro macow maye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. mursal faarax shire oo jooga gaalkacyo waxa uu baafinayaa mustaf faarax shire waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan etoobiya sanadii 2013 haddaba haddii uuna maqlayo mustaf faarax shire amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo mursal faarax shire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. firdowso mayow mooye oo joogta qardho waxay baafinaysaa xaawo mayow mooye waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan suudaan 2012 haddaba haddii ayna maqlayso xaawo mayow mooye amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo firdowso mayow mooye iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho. mawlid xaashi dirir oo jooga gaalkacyo waxa uu baafinayaa maryan xaashi dirir waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan etoobiya sanadii 2004 haddaba haddii ayna maqlaysa maryan xaashi dirir amaba ay jirta cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo mawlid xaashi dirir iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. maryan cusmaan nuur oo joogto gaalkacyo waxay baafinaysaa ramlo cusmaan nuur waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka australia 2005 haddaba haddii ayna maqlayso ramlo cusmaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maryan cusmaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo
xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo ama taleefonka lambarkiisu uu yahay 2529 eber 1654 eber 84. baafinta ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay Mahad Daawud Shariif oo jooga Wasil waxa uu baafinayaa Xamdi Daawud Shariif waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Ciraaq sanadii 2012 hadaba hadii aan maqlayso Xamdi Daawud Shariif ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo Mahad Daawud Shariif iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wasil baafintan maanta wana ginta Samira iyo Aisha way ku mahadsan yihiin barnaamijkaasi baafinta guud ahaan barnaamijkeena duurnimo oo Maxamed Cabdiraxmaan uu soo saaray anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi aan idin la socodsiinayay ayay inaga inta tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo haduu eebaha wada la yiraahdo waxaan idin leenahay dhageystayaal sida iyo nabadgelyo